wafdiga Somaliland maanta halkan yimid magaalada Washington dalka Mareykanku waxa hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaana uu ka kooban yahay dhowr xubnood oo kamid ah golaha wasiirada oo kamid yihiin wasiirka qorsheynta iyo wasiir dawlaha arrimaha maaliyadda iyo wasiirka macdanta iyo biyaha oo iyagu halkan naga soo horeeyay iyo aniga iyo wasiirka madaxtooyada oo madaxweynaha maanta la soconay oo la dhanka nimid waatay marka waftiga intaasi leeg maxay tahay ujeedada socdaalkiina arrimo dhowra oo muhiim ah ayaanu halkan u nimid waxaana noo qorshaysan inaanu aragno mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka oo dhinacyo badan leh wasaaradda khaarijiga iyo hay'adaha kale ee dawladda Mareykanka iyo xubnaha xagga baarlamaanka ka tirsan waxa kaloo intaan halkan joogno aan rajeynaa inaanu aragno qaybaha kale ee bulshada ee Mareykanka think tankska ama xarumaha waaweyn ee lagu gorfeeyo lagana doodo siyaasadda caalamka iyo nabadgelyada inaanu kulamo la yeelano hadalada madaxweynuhu uu halka ka jeediyaano noo qorshaysan waxa kaloo filaynaa in arrimo xagga wax soo saarka dalka iyo maalgashiga inaanu sharaa'id iyo maalqabeeno dalkan Mareykanka fadhigoodu yahay inaanu la kulno hay'adda USAID mucaawanada Mareykanku ay u fidiso Somaliland doonayna inaanu iyagana aanu shirar la yeelano oo dib u eegno macaamilka naga dhaxeeya arrimahaas ugu waaweyn socdaalkiinan haatan waxaad ka soo kicitinteen magaalada London ee dalka Britain iyadana maalmo ayaad halkaasi joogteen sida aanu wararka ku haynana waxaad saragteen mas'uuliyiin British bal iyagana nooga waran socdaalkiinii ee London iyo waxyaabaha ama kulamada aad la yeelateen mas'uuliyiinta Britain waa sida aad sheegtay waxaanu la kulanay intii aanu joognay magaalada London madaxda dalkaasi oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dawladda Ingiriiska Mr David Cameron iyo wasiirka arrimaha dibadda William Hague waxaanu ka wada hadalnay labadeeda geesood waxa weeye xiriirka cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa Ingiriiska iyo Somaliland oo arrimaha xagga nabadgelyadu ay qayb ka ahaayeen iyo xagga horumarka iyo mucaawanada Ingiriiska uu siiyo Somaliland waxa kaloo ka wada hadalay soo jeedin Ingiriisku soo jeediyay inay Somaliland ka qayb gasho shirka London ay dawladda Ingiriisku bishan soo socotay May 7 ay ku qabanayso arrimaha Soomaaliya ku saabsan ayaa iyana kamid ah arrimihii shirka laga wada hadlay waatay marka hore ayay Somaliland u sheegtay inaanay shirkaasi ka qayb galaynin wada hadalkiina sidaad adiguba tilmaantay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron waad isla soo qaadeen shirkaasi maxaa go'aansateen ugu dambeyn shirkaasi meelaad ka qayb gashaan dawladda Ingiriiska waxa muuqatay madaxdeedu oo ra'iisul wasaaruhu kamid yahay inay aad iyo aad u daneynayaan in ay Somaliland shirka bisha May lagu qabanayo London inay ka soo qayb gasho soo jeedintu xagga Ingiriiska ka timid waxa muuqatay in dawladda Ingiriisku arrintaa aad iyo aad ay ugu adag tahay jeceshahayna inay Somaliland ay ka soo qayb gasho hase yeeshee waxaanu u sheegnay oo madaxweynuhu u sheegay ra'iisul wasaaraha in Somaliland ay arrintaa mowqif iska taagtay xukuumaddeedu ay ka qaadatay mowqif cad kadib markii la qiimeeyay shirka loona arkay shirkaasi inuu yahay shir Soomaaliya khaas u ah oo arrimaha imika Soomaaliya ka taagan nabadgelyadu ka mid tahay hagaajinteedu mucaawanooyinka Soomaaliya u baahan tahay sida loo controlayo dawladdu adduunku ay uga warhaynayaan waxa ku baxday iyo sida loo kharashkanayo kamid yihiin iyo arrimo xagga sharci samaynta iyo kala dambeynta ay kamid yihiin waxaan u aragnay arrimahaasi arrimo muhiim u ah Soomaaliya waqtigan xaadirka beesha caalamkuna ay kala shaqeyso laakiin arrin Somaliland imika khusaysa maaha wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay ee dunidu ugu baaqday ee lagu dhex jiray lala wadayna maaha marka waxa la qaatay oo markii dambe xukuumad ahaan qaadanay in aanu ku adkaysano go'aankii hore aanu qaadanay oo ahaa inaanay Somaliland ka qayb galin shirka